Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa si weyn uga hadlay xadhigga joogtada ee suxufiyiinta iyo siyaasiyiinta ee ka dhanka ah xukuumadda Somaliland, taasi oo hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan uu ku baaqay in sharciga loo hoggaansamo. Sidoo kalena hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu xukuumadda ugu baaqay in xabsiga ay ka sii deyso xildhibaan Aadan Xaaji Axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Garadag, kaasi oo muddo xabsiga ku jiray, waxaana xukuumadda u soo jeediyey haddii uu dembi leeyahay mas-uulkaasi in maxkamadda la soo taago xukunkiisana la mariyo, si haddii aan dembi lagu haysanin xorriyaddiisii dib loogu celiyo. Waana kan Xirsi Cali Xaaji Xasan, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani, oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya. ama ha ahaadaan madaxda kale kala duwan, war waxaa leeyahay dadka shicibkaa sida ula macaamishaan baa laydinku qiimayn maayo. madaxda sida u salaantaan, madaxda sida uga hortagtaan iyo sida uga horboodaan. qof walba waxaad ku qiimaysantahay bulshada dhexdeeda, dadka kaa hooseeya sidaad ula macaamisho. marka waxaa leeyahay waa dadka shicibka ah, kullukum raacin sidii rasuulku kullukum raacin wa mas-uulun can raaciyati. qof waliba waa raaci, wuxuuna la weydiinayaa racyadiisii. waxaan leenahay qof walba mas-uul intaad ka tahay baa lagu weydiinaya, mas-uul intaad ka tahay ayaa lagu weydiinaya. xidhan ha ahaadaan xildhibaanka garada laga soo xidhay ee isagoo xasaanad leh oo xildhibaana ilaa hadda xidhan ee aan ilaa hadda la horgeynin, cadaalad la horgeynin. in ka badan 60 cisho ayuu xidhan yahay. xisbiga wadani buu ahaa, hadduu dambiile yahay difaaci mayno, adeer ku caddeeya baanu leenahay. hadduu dambiile yahay difaaci mayno, adeer ku caddeeya. xuquuqda dastuurku siiye sharcigu damaanad qaaday, adeer qofna kama sarreeyo sharciga. waxaanu leenahay alla hor keeno, sharciga alla hor keeno, ha isdifaaco. haddaad wax dambiga hayso ku caddee, haddii kale waa dulmi, waanu diidaynaa, waa cambaaraynaynaa, waa ka xunnahay, adiguna waa kugu xadaran leh. Samal Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.